Wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada badbaadada Koonfur Galbeed ee dhawaan magaalada Baydhabo ka saaray Cabdicasiis Laftagareen maanta dib loogu celiyay degmada Buur-Hakaba oo markii horeba laga soo qaaday. Ciidamadan oo ka qayb qaatay howlgalkii ciidamada dawladda ay ku galeen Baydhabo 30kii Maarso ee sanadkan 2026 ayaa haatan laga saaray gudaha magaalada si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo hubka. Mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa sheegay in la isla gartay in ciidamada lagu celiyo xarumahoodii iyagoo laga warqabi doono maadaama ay qabteen howlgal muhiim ah ayna ku guuleysteen howlgalkii Baydhabo. Ujeedada ugu weyn ayaa ah in la xadido ciidamada tirada badan ee jooga magaalada maadaama la galayo doorasho iyo tartan adag oo ay isku hayaan dhinacyo kala duwan oo daneynaya hoggaanka Koonfur Galbeed. Horey ciidamadii taabacsanaa Laftagareen ayaa isaga baxay magaalada iyo hareeraheeda iyaga oo gaaray qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee Jubbaland. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maanta gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo isaga oo loo diyaarinayo inuu noqdo musharaxa xisbiga JSB ku metelaya doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Wararka ayaa intaas ku daraya in Xasan Sheekh uu ku qanciyay agaasimihii hore ee Villa Soomaaliya ahna saaxiib aad ugu dhow Xasan Sheekh Maxamuud inuu tartanka ugu haro Aadan Madoobe ayadoo si kale loo qanciyay. Si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa tartanka ka dhigaysa mid aanu u muuqan mid furan gaar ahaan maadaama Baydhabo ay hadda ku jirto marxalad kala guur ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay saameyn xooggan ku leedahay.